wafdigii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanya uu hogaaminayay ee ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya waxa wafdigaasi madaxweynaha ku wehelinayay marwada koowaad ee qaranka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha dibadda arrimaha gudaha warfaafinta madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kulan ballaaran la yeeshay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn waxaanay kulankaasi kula yeesheen magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya waxa lagaga wada hadlay kulankaasi arrimaha amniga dhaqaalaha siyaasadda markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta si wada jira ugu faahfaahiyay waxyaalihii laga wada hadlay madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani. And we had a very good understanding. We are two neighborly countries which have to cooperate in a lot of ways and in a lot of areas. And we have discussed many areas in many things which are of interest to both countries. We clearly understood each other very well. Thank you very much. It was a very successful trip. mudane madaxweyne ada soo koobaya maxaa ka wada hadasheen mas'uuliyiintii dhigayna la kulanteen sidaan u sheegnay danaha labada dal baan ka wada hadalay xagga amniga iyo xagga kaleba xagga warqabsiga wada xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda iyo amniga mid walba si wanaagsan oo isu fahanay aad iyo aad baa mahadsan si qurux badan buu u dhacay almost 2 saacadood bay prime ministerkii madaxweynuhu wada hadlayeen iyo tiimkii la socday waxa laga wada hadlay arrimo fara badan oo nabadgelyadu ka mid tahay sidii labada dalba waxaan ku raadayay loo kobcin lahaa gaar ahaan dhinaca Soomaaliland waxa laga wada hadlay sidii baa mushtarka loo xoojin lahaa run ahaantii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa labada dalba ay isku afkarteen waxyaabo badanna oo madaxweynuhu malaynaysa inuu sii xoogeysanayo xiriirka Itoobiya aad iyo aad buu sii xoogeysanayaa Dr. Sacad Cali Shire wasiirad baan ku soo dhaweynayaa maxaad adiguna nooga sheegi kartaa kale kulankii aad la qaadateen mas'uuliyiinta dhigayna maanta bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaan uga mahad celiyo prime ministerka iyo dawladdiisa sidii wanaagsaneed ee noo qaabileen intii aan joognay aan la kulanay prime ministerka waxaan kala hadalay amuuro badan oo ku saabsan sidii u xoojin lahayn xiriirka naga dhaxeeya dhinac walba haddii dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca nabadgelyada intaba labadaba mas'uuliyad baa naga saaran sidii loogu soo dabaali lahaa gobolkan xasilooni loona heli lahaa harumar